hortii ugu horeeyayba waxay dhaheen waxa dagaalka lagu dilay Fuad Maxamed Khalaf oo loo yaqaan Fuad Shangole waa kan oo aniga nool muslimiinta la hadlayo waxaan muslimiintu u sheegaynaa inaan noolnahay sharaf leenahay guulaysanay kuwa joogan la hadlaynaa kuwa maqanna fariinta way gaaraysaa Sharma boy ayaan ka maqli jira cabsi horta ninka wallahi cabsi way kulay waayay ninka hadlaya waa Fuad Maxamed Khalaf oo naanaystiisu tahay Shangole Fuad Shangole waa nin asalkiisu yahay reer Puntland laakiin sanadihii ugu dambeeyay dhowr iyo 10 sano ugu dambeysay waa nin wax ka fahmay koonfurta Soomaaliya waa sargaal sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab wuxuuna u qaabilsan yahay tashkiilinta Soomaalida iyo kuwa banaanka ka yimid ajaanibka ah waayahay sirdoonka Ethiopia ayaa kal hore ka dhawaajiyay in duqeyn ay la beegsadeen oo ay qudha kaga jareen sargaalkaas saameynta weyn ku leh walow uusan title qaadan isaga sidan xogta ku hayo laakiin haddana ragga title kale waa ka sii saameyn badan yahay marka kooxda dhaxdeeda la soo warinayo xogteeda haddana sirdoonka Ethiopia oo Twitter-koodii soo geliyo caalamkii oo dhan ay arkeen maanta ayuu soo hadlay ninkaas wuxuu leeyahay waa noolahay wuxuu ka warbixinayay dagaaladii ay la galeen ciidanka liyu police ismaamulka Soomaalida iyo kuwa Ethiopia oo garab ah ayuu ka warbixinayay wuxuu sheegay in dagaalkii waa sidoo asaga hadalka u dhigay dagaalkii caato 40 minute markii uu socday ay jabiyeen kooxda liyu police kadibna ciidamadii Ethiopia ay u soo heeliyeen waa sida isaga xogta uu dhiga weeye kadibna maalintii xigtay markii ay soo urursadeen buu yiri haddana waan weerarnay 3 saac bay qaadato yiri inaan askar ka qabanno kulli isaga jabkiisa iyo dhibaatadiisa iyo wixii gaaray waa ka gaabsayay wuxuu cadeeyay inuu wali nool yahay wuxuu cadeeyay in xataa hadii uu dhinto oo aan runtiiso shabaabku waa kuwa isqariya hadii uu dhinto xataa geerida uusan kala jecleen wuxuu u digay nin la yiraahdo Mustafa Cagjar madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Mustafa Cagjar wuxuu tusaale u soo qaatay halkii uu maray nin la yiraahdo Cabdi Maxamed Umar oo ilay ku naanaystiisu tahay wuu u digay waxaana ka mid ahaa hadaladiisii isagoo la hadlaya Mustafa Cagjar tusaalena u soo qaadanaya madaxweynihii isaga ka horeeyay ragii ka sii horeeyay wuxuu leeyahay sida tan waxa dulinimo ugu filan kii iyaga keenay ee aasay ina ilay la oranayay ee muslimiinta laayay ee fasahaadiyay ee dhiigooda dhulka ku qulqulay ee kabaha u ahaameen sanaawi maanta kaaladii laftigoodii buu xabsi ugu jiraa waayahay barnaamijkiisa ama khudbadiisu way dheereed inta kaliya muhiimka ah ayaan ka soo qaatay waayahay dhanka kale sidee caalamku ama Soomaalidu ay u sawiran kartaa warbixin dambe oo ka timaada sirdoonka Ethiopia oo ah mid adag mar haddii ay ku dhiiradeen sida isagu Fuad Shangole uu ku doodayo wuxuu leeyahay waa sidoo hadalka u dhigay jabkii aan gaarsiinay liyu police iyo ciidamada Ethiopia ayay inda sarcaad ku sameeyeen oo Fuad Shangole dilnay waa inda sarcaad ay ku qarinayaan uu yiri jabka liyu police mar haddii uu soo hadlo laakiin warbixintaas waxay iska noqotay mid qiyaali ah oo aan waxba ka jirin isaga noolba haddii uu soo hadlay waliba dagaal ayaan diyaar u dhahay waaya intaas baan kaga gudbaynaa Fuad Shangole maanta taliyaha ciidanka xoogga dalka Ethiopia iyo sargaalka ugu sareeya isna ciidanka liyu police ayaa beedhaba soo gaaray sawirkan ayay wada galeen labadaas sargaal iyo madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen dadku siyaabo kala duwan ayay falcelin uga bixiyaan laakiin dadka siyaasadda oo darosa oo aan soo xiganayana waxay leeyihiin Cabdicasiis Laftagareen madaxweynaha koonfur galbeed in taliyihii ciidanka Ethiopia iyo liyu police ay garbaha ka soo istaagaan maanta shalan Mukhtaar Rowow lagu dhawaaqay oo isagu u arko bilowga ciribtirkiisa siyaasadeed
وجواب وافي أو سينا يوم مدحوينها صوماليا حسن الشيخ محمود ومعي تاي هذه وحدات من هو منصور يسودد oo kursigan iga tuuri rabtid wasiirna ka dhigta ninka shalay xeeray aniga inaan Itoobiya ku tashto sida Jubbaland Kenyatta ugu tashatay ayaan garowsaday waa siyaasad iska cad waxay u muuqataa Itoobiya qudheedu inay diyaar u tahay ama gacan siyaasadeed ay siinayso Cabdicasiis Lafta Gareen waan aragnaa loolanka Lafta Gareen xildhibaanadiisu careysan oo maanta ka hadlay ciidamadii Itoobiya iyo kuwa liyu booliis oo uu dowlatus ciidan maanta ku sameeyay maxay isaga ka difaaci kartaa waxay ka difaaci kartaa dadka siyaasadda oo darosana in ciidan haram cad iyo ciidamadii waa taqaanaan Dhuusamareeb iyo Gurceel lagu daldalayay iyo gado inaan baydhabo markaas lagula degdegi karin haddii ciidamada Itoobiya ay joogaan oo taas maxaa cadeen u ah Maxamed Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku hungoobay ku guuldareystay in ciidamadii uu ku faanayay haram cad iyo gorgor iyo gaashaan iyo hebelo iyo shimbir iyo ay Kismaayo ka dhigaan maxay tahay ma awood ciidan oo Axmed Madow uu leeyahay ayaa la isaga difaacay maya ciidanka Itoobiya Kenya ayaan ogoleen oo xitaa diyaarad ku celiyay diyaarada ciidan oo Itoobiya leh xitaa ka celiyay halka hadba ninkii aeroportka jooga ayaa toore miyay hada difaaci doonta siyaasadda Lafta Gareen ee Xasan Sheekh wajahaysa Itoobiya oo Xasan diidan liyu booliis oo Xasan diidan oo waliba dib u aragtay liyu booliis waag u bariyay Itoobiya markii ra'iisul wasaare ogaadin la magacaabay waana lagu soo siqay camal waayahay haddii marka Koonfur Galbeed ay Itoobiyan liyu booliis keensadeen xaalku Koonfur Galbeed miyuu ku ekaanaya dadka siyaasadda oo darosa qoorada siyaasadda waxay leeyihiin filo iyagoo Dhuusamareeb yimid muruqooda ku yimid filo iyagoo hiiraa soo istaagay iyo Jowhar oo madaxdii maamulada sida Qorqor iyo Cali Guudlaawe hoosta uga xariiqaya hadba Itoobiya waxa ay doorbidayso Puntland warkeedu waa cad yahay iyada awalba ciidan ku filan oo awood ay qabtaa Itoobiyan uma baahna laakiin siyaasadda Abiy iyaduna kama marnaanayso by the way shacabo dawladda dhexe ee Soomaaliya oo horboodaya Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo ay tahay anigu aragtideeda dawladdii ugu dimuqraadiyadsaneed oo aan looga baqayn extension oo aan laga baqayn duulaan oo aan laga baqayn siyaasad la weerar oo aan laga baqayn wax kale iyo banaanbaxyaal la caburiyo dibadda baxyaal afkaartooda ka turjumay in la caburiyo dawlad noocaasi u baaneed laakiin dalka dariska ee Itoobiya ma u baahan yahay dawlad dimuqraadiyad ah dadku ay wada rabaan shacabku ay wada doonayaan jawaabtu waa maya Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariistay ayaa laga hayaa buug qoray ayay ku jirtay Masar iyo Itoobiya hadda isku dhigan wuxuu leeyahay Masar weligoodna isku dhignaayay wadiga Nil ilaa inta la noolaa oo dawladii ay jirtaba caalamka oo lagu jiro qaramada midoobay United Nations Cabdullaahi wuxuu yiri Allah u naxariistay Masar ila labada dawlad waa tartamayaan waa loolamayaan Masar mar walba waxay ku fikirtaa sidii loo heli lahaa awood adag oo geeska Afrika ka jirta Itoobiya la tartanta ay Masar ku dadaalaysaa inay jirto waa muhiim Etoobiyana maxay iyaduna qorsheynaysaa oo ama qorsheyn jirta mustaqbalka qorsheyn doonta inaan awood adag oo jirta aysan marna daris la noqon waad aragtaa halka Soomaaliya marka Etoobiya waxay diyaar u tahay dawlad uu hogaaminayo Farmaajo oo kale oo isaga xukunka la weeyahay kursiga la weeyahay oo aan mustaqbal Soomaali iyo mid siyaasadeed iyo dhaxal awoodna ilaalinaynin laakiin Xasan Sheekh oo kale nin Etoobiyana heshiis la Masarna heshiis la Eritrea heshiis la Djibouti heshiis la Etoobiya marabta Etoobiya waxay u baahan tahay adeege u daacad ah Ilaahay baan ku dhaartay Etoobiya waxay rabtaa in Soomaaliya madaxweynaheedu uu noqdo sida Mustafa Cagjar oo kale ma noqon karno Farmaajo saasoo diyaar u aha si xukunka uu joogo mar haddii la waayo Mustafa Cagjarka Soomaaliya hadda waxa taagan nin siyaasad Soomaaliya la yiraahdo inuu ku shaqeeyo rabo Etoobiyana mar diyaar uma waxaad iga qortaan marka haddii intaas aragtaas ay u raacsantihiin muuqaalkaas like saara waxaad iga qortaa Abiy iyo Xasan isma huraayaan maxay isku haystaan laakiin hadalkayga soo xasuuso waa adduun maxay isku haystaan dal adag oo cagihiisa ku taagan oo Soomaali liira ma sameyn kartid warana waxa u baahan oo Xasan la taagay
dal adag oo Soomaaliya oo Etoobiyana dib ku ahayn ma rabto Etoobiya abina ma rabo kulay liu police iyo dadkan kale ee ciidamadan kale waa uu kuwa amarka ku shaqeeya kuwa ayaga awood u leh inay banaanka aadaan maaha haddii uu ka naxayo Mustafa Cagjar ama dowlad deegaanka canfartaas Soomaalida xasuuqday ee dhameysay ayuu garab walaalnimo ama garab dowladnimo siin lahaa inuu Baydhabo iyo Hiiraan iyo Dhuusamareeb u soo daabulo danahooda kama shaqeeyno haddii danahooda ka shaqeeyno canfarta Soomaalida maalin kasta gowracaysa ee jarjaraysa ayuu ka qaban lahaa walaalaheen Soomaaliyeed ee ogaadeen u badan ee kaliya shanaad ku nool waayahay intaasna waa warbixinadii ugu dambeeyay lafta garan iyo dowlad tuskiisa iyo Mustafa Cagjar wuxuu baa saxanaye qaybaha dambe ee barnaamijyada ayaa kaga bogan doontaa hadba wixii soo korna ku soo bir page-keena barteena YouTube muuqaalkana inoo sii shargare like na saar bye bye